waxa uu tahriib ku tegay in ka badan 10 waddan oo dunida ka mid ah. Kharaad, gaajo iyo dhibaatooyin kala duwan ayuu ka soo dhaxlay safarka halista badan ee tahriibka. Balse maanta dalkiisa waxa uu ku soo kordhiyay hal abuur cusub. Kani waa Cabdinaasir Xirsi Cabdi, waa hal abuuraha labaajada wareegta oo ka shaqeysa Muqdisho. Labaajada wareegta ma ahan labaajo caadi ah oo loogu tagayo goob gaar ah, balse hal abuurka wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu yahay in ay dadka gawaaridooda ugu soo dhaqaan goob walba oo ay joogaan. Haddaba hal abuurkan goormee ayuu soo kordhiyay Cabdinaasir Xirsi? Wallahi hal abuurkan in muddo ku fakiraayo muddo adiga hal sano iyo bar, laakiin waxaan ka hirgelinay bishan Maarso bisha dartan soo dhaafay waana kaasa barnaamijkan waxa ka keenay wadamo badan oo soo maray oo lugta soo marshay aan ku soo arkay markaasna aan si u fiirsano wadankeyga inuu lahayn markaan arkay asdaaniyo alle leeyahay wadankii aad barnaamijkan aad ka hirgelin lahayd dhalinyaro badan oo shaqo abuur u noqon lahayd waxa waaye wadankana micnaha dhan walba micnaha dadoo wax tiraya jiro micnaha oo hooshooda u kalfoon labaada aan ka soo gaarin oo kala wada ku xirmi karto kaleeto soo marka waa kaasa labaajada wareegta ee uu hal abuuray Cabdinaasir waxaa ka shaqeeya gawaari gaaraysa 5 gaari, kuwaasi oo loogu talagalay in macaamiisha loogu tago goobaha ay joogaan si gawaaridooda loogu soo dhaqo. hadda gaariga gurigiisa aan ugu tageynaa meesha wax ugu qabanayna haddii noqoto motorka gaariga haddii noqoto gudihii gaariga haddii noqoto dhan waliba gaarigiisa quruxsan aan ugu soo tageynaa meesha ayadii aan adeegii asoo meeshiisa jooga aan ugu sameynaa marka dadkii marka baa adeeg saayid u jeceliin saayid u soo dhaweeyeen marka waa fikrad wanaagsan. Cabdinaasir Xirsi weli maskaxdiisa kama aysan go'in dhibaatooyinka tahriibka, waxaana uga digay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay dalkooda ka cararaan. taa badalkeeda waxa uu ku baaqay in ay la yimaadaan hal abuur iyo xirfado ay ku shaqeystaan. horta tahriib horta iyo boofis horta waa iska dhib badan yahay wax faa'iido oo soo kordhinayo ma lahan maanta Mareykan u dambeeya hadaa aad tagtid wallahi bilaa tala wadankaaga kaaga qeyr baran wadankaaga waxa aad ku shaqeysatid aad ku anfacayo dhowr wadan waa tagay waa soo jafay waxa waaye Bahrain waa tagay Turki wadan dhaa waa tagay Allah musta'aan Greek naftirkeeda waa ka soo laabtay jaf badan waa soo maray ma fahanti laakiin wadanka nin wadankiisa jooga oo wax qabsado oo kii wadankiisa jooga wax qabsado ma dareemayo inuu macnaha tahriib iyo waxaas kale fikradaas niyadiis kuma soo dhacayso dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay shaqo ceeb ma ahan ilaahu gaar dhaqo waxa noqoto waa ognahay dhamaanteen waxa aan soo baranay dugsiga sare ka soo dhameynay jaamacada soo dhameynay wadankeena hadirtaan oo sare uu ka cooyaa marka waxa la rabaa in dawladda la garab istaago dadka shacabka mideysnaadaan dhalinyarada waxa waaye shaqooyin ay shaqeysato ayada shaqo ay sameeyso dhalinyarada kale ee si gacan qabato ayada si shaqo siiso oo aan shaqo laga macnaha aan laga faanin kabaha la tolaayo maaragtay abdeel leeyahay lagu sameeyo bis kan labaadadii iyo ma dhaqaayo waa moogta abdeel lagu sameeyo marka wadankiina macnaha hirgasta oo wadankiina kor u qaado waxa waaye barnaamijyo cusub la imaado insha Allah wallahi bilaa tala horta wadan shisheeye faa'iido ma leh inta wadan shisheeye aadi karo waa aad horta 6 wadan waa soo maray Allah musta'aan go'aansna waxa ku gaaraya wallahi hadirtaan marka aan soo laabanayo qorsheygu wuxuu ahaa inaan wadankeyga aan barnaamijkan ka hirgasto aan dib u laaban anoo sharci leh wadan sharci Bahrain sharci ku lahay faraha ka soo qaad inaan ku laabanin oo aan wadan kale shaqaale ka noqonin oo wadankeygii aan ku sameesto investi oo dhalinyarada kale ku dhiirigeliyo aan shaqeysano waxa waaye waa kaasa hal abuurkan cusub waxa uu shaqo abuur u noqday daayir badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo markii hore shaqo la'aan ahaa waxayna ku faraxsan yihiin in ay ka faa'iideystaan hal abuurkan. wallahi shaqo abuurkan waa shaqo caadi ah magacaygu waa Maxamed waa kanaahe waa shaqeysanoona marka waa ka waxabaha dhaqda maxaa kamid ah waxaan dhaqnaa baabuurta waxa kamid ah macna baabuurta raaxada macna premiumada waxa waaye baabuurta waaweyntii Lexiyada ayu nooc baabuur waa dhaqnaa mifaanta waa ma sha Allah shaqo abuurkan waa macna shaqo fiican oo dhalinyarada Soomaaliyeed dhiirigelin u ah kuwa tahriib lahay kuwa badaha ku dhiman lahay macna dhiirigelin u tahay barkii hore baabuurkan dhaqi jirnay masaafad goynaysa waxa laga yaabaa in marka qaar wadadii kugu xidhnaato waxa soo dhib hadda waxa weeye waan koreysanay adigoo gurigaaga joogaad burji wacaysa halkaas lagu iimaanaya hawshaada lagu dhameynaya adigoo qanacsan ay ka tagayaan waa aad baan inta badan ugu qanacsanahay adeegoona in ka badan 6 wadan ayaa waxa uu ku tagay tahriib
waxaana uu soo maray dhibaatooyin kala duwan oo ka soo gaaray tahriibka laakiin maanta waxa uu joogaa waddankiisa isaga oo soo kordhiyey hal abuur cusub oo uu kaga shaqaysanayo waddankiisa cabdinaasir waa wiil dhalinyarada aad soo daawateen waxaana uu aad ugu faraxsan yahay in waddankiisa uu ku shaqaysto waxaana maanta uu yahay qof loo shaqeeyo iyadoo saaxiibadii uu siiyey fursado shaqo labaajada wareegta waa shaqada uu ka shaqeeyo cabdinaasir cabdirashiid maxamuud warbaahinta qaranka magaalada muqdisho